dowladdii Muuse Bixi wuxuu dhammaystiray mashruucii madaxweyne Sinai saxiixay ee berbera kala door waxa uu qabtay oo uu hirgeliyey dhaamkii ugu weynaa ee laga qodo Somaliland historygeeda oo laga qoday laga sameeyey muxuu ahaa haro dhaam maahe waa haradaasoo haddii maanta ay abaara dhacaan dad ka badan 200 kun oo qof ay ku baxsan karaan muddo sanada oo biyo ka cabi karayaan because waa dhul dhan oo la xidhay oo biyo xidhanaa waxa uu ku guuleystay gobolka ka yimid daad mareeron lahayn waxaan kuma soo galay inuu custom sameeyo customka daba gorayaal isaga sameeyay maan dakhliga soo galaa bishii uu ka badan yahay $100 customka ka soo xarooda $100 baa markaasi ood weyna ka soo xarooda customka soo qura ka soo xarooda marka dadkaan fahansanayn ee aan garanayn markaasi deegaanka customka xaguu ku yaala maxaa markaa laga qabtaa customkaas wuxuu ku yaala daba gorayaal waa xadkeen Ethiopia la leenahay waxyaabaha ugu badan ee inaga dakhligu naga soo galaana waxa weeye waa cashuurun soo saar milihin waxyaabaha halka markaa soo maray badacada ama haday noqoto qaad ama haday noqoto qudrad ama haday noqoto wax kale Ethiopia ka soo galaya awl waxay ka soo gali jireen inta customka gabiilay iyo customka waxay ka soo gali jireen biligubadle iyo ka ina guuxa customka intii la sameeyay waxay magaalada ama gobolka uu soo saaraa 100,000 iyo ka badan bishii oo ay 10% ku leedahay degmadu caasimada ku leedahay oo ay qaataan golaha deegaanka oo ay ku jirto dakhligooda de customka waxa soo kordhiyay oo ku soo kordhiyay gobolka madaxweyne Muuse Bixi baa ku soo kordhiyay wax kale uu ku soo kordhiyay bangiga weyn ee maanta ka dhisanay labada dabaqa isaga u dhisay magaalada Oodweyne ka dhisan ma shaqeeya banguna uu shaqeeya customkuna uu shaqeeya xafiiskii dawladda hoose isaguna jiri jirin oo dabaqana waa loo dhisay oo uu shaqeeya waxaad ma moodaa balliga ugu weyn oo ku yaala iyo 7 balli oo kalena waa laga dhisay marka waqtigaas la dhisay adiga joogtay waqtiga Muuse joogu baa la dhisay waqti Muuse jooga aniga qaar baa ila kulmay waqtiga oo la kulmay laakiin gidigo mashaariic xilligaas ay galeen waxa ka hadlay madaxweyne kasta de legacy buu ka tagaa wax buu qabtaa wax dhibaatana way dhacdaa wanaagna wuu dhacaa marka ilaa hadda cirro de kama hayno